oo fadhiya abaara markay ahayd 6dii baa nin noo yimi ama waxba dhinaa daqiiqado markaasuu wuxuu yiri ragaan badnayn baan markaa masaajidka dhexdiisa ku fadhinaa aan isleeyahay 10 waa ka yartihiin oo teel baan u fadhinaa masaajidka nin badantiisu u fadhiyaa dabeetana ninkii wuxuu naga codsaday qof dumara oo ka xanuunsanayso ooridiisa oo aqalka joogta inaanu adkaar iyo quraan ugu soo akhrino aad buu noogu celceliyay war xilligan waa xilligii la kala shaqo tagi lahaa shuruuqi baa la sugayaa waqti waan ugu adag yahay markuu nagu ilxaaxiyay waa iska aqbalna waa tagnay aqalkii baanu tagnay waa guri nusbalooda 3 maqsin iyo suuliye kitchen iyo waxa ka kooban kadinka markaanu ka galnay isaga naga horeeyay dibaddan yara istaagnay wuxuu yiri soo gudba dabeetana waa aqalkii 3 maqsinkii u horeeyay ee bidixda sidaas u safan yihiin ayuu yiri kan soo gala kaasaanu galay qolka dhexdiisa waxba ma yaalaan wax gogola waxba ma yaalaan laakiin qof dumara baa waxay kada loobtaayoo fadhidaa raarta ama sabarka u dambeeya qolka gidaarka kada loobtaayo sidaa u fadhidaa markaas waxaan ku yiri bal daaqada yara furo si wax loo arko daaqadii uu furay waa soo galnay qof dumara waxay fadhidaa aqalka halka u dambeeyay gidaarka bay kada loobtaayo dhabarkay ku haysaa gidaarka markaas uu qofta waa xaaskaygii waxaan doonayaa inaad niman yahow bal quraan ku akhrisaan waxa waa ka garan waayay arrinkeeda ilaa shalay ilaa xalay xaalkeedu ma wacnayn dabeetana waxaan ku niri bal ag fariiso oo maryahana u hagaajiyo haddii ay lacalla bal dhaqdhaqaaqdo wax iska bedelaan u diyaar garow ilaa adiga ooridaadii tahay inaad si wacan u qabato annagu qaban kari mayne quraankii baanu ku bilownay waa ku akhrinay waxoogaa markaanu ku akhrinaynay bay waxay bilowday inay sida bisada u ciido gabadhi yaw bisad ciidaysa weligaa ma aragtay annagii baa yaabnay quraan ku akhrinay quraankii baanu joojinay waxaan isnay bal hubsada horta gabadhan aad quraanka ku akhrinaysaan baa sida bisada u ciyaysa mise bisad baa qolka ku jirta horta waa ku celinay mise sida bisada u ciyaysa gabadha quraankii baanu ku wadnay ku akhrinay waxay sida bisada u ciidaba oo sidaas marba tiraahdo markii dambe caadi bay iska noqotay markay xogaa kala degtay baan su'aal weydiiyay waxaan ku yiri maxaa ku helay xagee laga hayaa sidee tahay waxay tiri shalay salaadii duhur ka hor anigoo qadadii reerka u karinaya ayaa halkan waxaa ii saarnaa dheeri biyo ah oo aan islahaad baasta ku karisid dabeetana anigoo suugadii iyo wixii aan sameyn lahaa cadkii jarjaraya ayaa bisadii kadinka ka soo gashay albaabkoo furan dabeetana cadkii yaraayaan islaad qadada ku karisid bay la booday biyihii baylka ahaa ee baastada aan u diyaariyey ayaa intaan darsaday koob baan ka daba ordayoo kadinkaan ku gaaro waa ku shubay halkaasay ku kogtay bisadii oo nafti kaga baxday markaasaan intii koobka ku harsanaydna u raaciyay bay tiri iyadoo aqdaa leh markay sidaa u kogtay bisadii bislaatayna waa tuuray bay tiri markaan ka soo noqday ayaa xanuunkaasi igalay bay tiri ilaa iyo xaalkaygu ma wacnayn waqtigaa laga bilaabo ilaa iyo waqtigaa arrintaasi waxay tusinaysaa qaybihii dulmiga ee muxaadarada ku jiray dulmu alcabdi lilxayawaan qofku inuu xayawaanka dulmiyo khatarta ay leedahay waa sidii nebiga sal allahu alayh wasalam habeenkii maalintii cadceeddu madoobaatay isagoo salaadii tukinaya dibna u soo gurtay tallaabooyin mixraabka isagoo taagan horena marka qaarkood uu u tallaabsaday oo uu yidhi naartaa maanta lay tusay weli waxa aan ku arkay wax la mida ma arag